بسم الله الرحمن الرحيم صاحبي الكلانتي وعن ونكسن حاد كسو دواتان wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada daawan doontaan waxa ka mid noqon doona madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble oo kulan albaabadii u xiran yihiin ku yeeshay gudaha filla Soomaaliya xog dheeraad ah oo laga helay warbixinta uu soo gudbin doono Faahid Yaasiin Xaaji Daahir maxay tahay xogtaas wadani soo gudbin doona sidoo kale waxaan eegi doonaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo la sheegay inuu aad u xumaaday in wasiirka amniga loo magacaabo Cabdiqaadir Maxamed Nuur weeraro mar kale laga cabsi qabo inay ka dhacaan magaalada Jowhar iyo digniino arrintaas ku saabsan oo soo ifbaxaya madaxweynaha maamulka Puntland oo soo saaray digniino culus qodobadaas oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato waxaan ka codsanaynaa in YouTube-ka subscribe inoo saarto muuqaalkana like aad inoo saarto asxaabtaadana aad u share gareyso si saaxiibo wanaagsan oo adiga kula mid aan u yeelano waagaga diina ku bilowno wararka laga helayo gudaha xarunta filla Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in maanta kulan xasaasi halkaas uu ku dhaxmaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyo sidoo kale madaxweynaha madaxweynaha dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuwa oo iyagu muddooyinkii ugu dambeeyay uu u dhaxeeyay khilaaf aad u xooggan oo ka dhashay dilka Ikraan Tahliil Faarax oo hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ay shaacisay wadahadalladaas ayaa sidoo kale warar soo baxaya waxay tilmaamayaan in garwadeyn ay ka hayeen madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Galmudug iyo sidoo kale Koonfur Galbeed oo iyagu maalmo ka hor soo gaaray gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ila wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaana sidoo kale waxa ay sheegeen in shirkaas ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu la tagay afar qodob kuwa oo iyagu markaa keenay khilaafka haatan kala dhaxeeya madaxweynaha madaxweynaha dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo sidoo kale madaxweynaha madaxweynaha dhamaaday ayaa sababta ugu weyn ee isku khilaafeen waxa ay ahayd dilkii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ay shaacisay ee loo geystay Ikraan Tahliil Warsame iyadoo sidoo kale hay'adda nabad sugidda dilkaas ay ku eedeysay dagaalyahanada Al-Shabaab waxaana sidoo kale war la yaab leh uu ka soo baxay dagaalamayaasha Al-Shabaab iyagoo sidoo kale sheegay inay aad u la yaabeen warkaas ka soo yeeray hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya warar la helayo ayaa sidoo kale waxay intaas ku darayaan in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu Cabdicaziz Maxamed Xasan Laftagareen iyo Axmed Cabdikaari Qorqor uu sheegay in lagama taabtaan ay yihiin qodobo marka afar ah oo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu soo bandhigay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu sheegay in biyo kama dhibcaan ay tahay shaqo joojinta lagu sameeyay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Faahid Yaasiin Xaaji Daahir isla markaana ay qasab tahay in Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe uu yahay taliyaha sida ku meel gaarka ah ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya loogu magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa sidoo kale waxa uu shaaciyay in waajib ay tahay in wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu yahay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur isla markaana aysan jirin waxyaabaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagu markaa uu kaga soo horjeedo in wasiirka amniga loo magacaabo Cabdullaahi Maxamed Nuur afar ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa kiiska Ikraan Tahliil Faarax waxa uu sheegay in looga baahan yahay inay baarto maxkamadda ciidamada qalabka sida oo loo gudbiyay xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida in si cadaalad ah loo horgeeyo dadkii ka dambeeyay dilka Ikraan Tahliil Faarax hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa waxa lagu tuumayaa in gacan weyn ay ka geysatay dilka Ikraan Tahliil Faarax oo markii ugu dambeysay iyadu sarneed gaari ay leedahay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya isla markaana ka raacday guriga Barkhadiijo oo ah goobta ay ku dhex taalo hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya dhinaca kale madaxweynaha madaxweynaha dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hore waxa uu aqbalay xilka qaadistii Faahid Yaasiin lagu sameeyay waxa uu isagu u magacaabay la taliyaha amniga guud ee qaranka ee madaxweyne Farmaajo sida khaaska ah uu yeelanayo Farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu doonayaa in si gaar ah loo xalliyo kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo bixiyo diyadeeda sida uu shaaciyay Xasan Faarax oo sheegay in uu yahay adeerka Ikraan Tahliil Faarax si kastaba ha ahaatee xiisada siyaasadeed ee ka dhex qaraxday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa saameyn waxa ay ku yeelatay xaaladda guud ee dalka iyo sidoo kale geedi socodka doorashooyinka 2022 ee hadda bilowga ka gudaha waddanka Soomaaliya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha madaxweynaha dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa ay kala magacaabeen laba taliye kuwa oo iyagu aysan u qeybsanaynin hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu magacaabay Yaasiin Fari oo horey u ahaa taliyihii nabad sugidda gobolka Banaadir waxa uu u magacaabay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya markii Faahid Yaasiin laga qaaday xilkaasi si lamid ah ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa Bashiir Goobe isaguna waxa uu magacaabay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya in si ku meel gaar ah uu markaa u hayo xilkii uu baneeyay Faahid Yaasiin Xaaji Daahir oo eedeymo kala duwan oo la xiriira dilka Ikraan Tahliil Faarax lagu tuumayo
fahad yaasiin ayaa sidoo kale waxa uu ahaa garab ka mid a garbihii maxamed cabdulaahi farmaajo, waxaana farmaajo hadda uu waayey mid ka mid ah garbihii uu ku duuli jiray oo ahaa agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya, waxa uuna hadda isagu u magacaabay la taliyaha guud ee qaranka. dhinaca kale xogo hoose oo la helay ayaa waxa ay xaqiijinayaan in kooxda farmaajo iyo fahad ay hogaamiyaan ay dejiyeen qorshe ay kaga dabaalanayaan eedaha ka dhashay afduubkii iyo dilkii Ikraan Tahliil Warsame oo gacanta hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ku maqan tan iyo bishii 26 Juun ee sanadkan. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa agaasimihii hore hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya waxa uu ku amray inuu bixiyo faahfaahin dheeraad ah oo lagu qanci karo kadib markii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ay baahisay in al-shabaab ay dileen Ikraan Tahliil. tallaabadaas oo wadna qabad ku noqotay Fahad Yaasiin iyo guud ahaan kooxda uu indhaha u yahay ee farmaajo ku jirta ayaa waxa ay sababtay in Fahad Yaasiin uu sheego in xogta kiiskaas si faahfaahsan uu ula wadaagayo waxa loogu yeero golaha amniga oo iyagu markaa koox ah isla markaana uu ku jiro madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, kuwaas oo iyagu kulan yeelan doona markii ugu horeysay 2 sano kadib. go'aankaas uu qaatay wariyihii hore Al Jazeera ayaa sidoo kale soo dedejisay dalabkii shacabka Soomaaliyeed ee ahaa in xilka laga reebo dilaaga aan nixin isla markaana laga xayoobiyo xilkii uu hayay si loola xisaabtamo. waxaana sidoo kale ugu dambeyn shaqada ka buriyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble halka xafiiskiisa lagu furay baaritaanka kiiska Ikraan Tahliil Faarax. tan iyo xilligaas kooxda farmaajo iyo sidoo kale Fahad Yaasiin ay horkacayaan ayaa waxa ay geed dheer iyo mid gaabanba ay u koreen sidii lagu hortagi lahaa dadaalada Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo ay cadaaladda loogu raadinayo Ikraan Tahliil si ay kaga badbaadaan gacmaha sharciga. farmaajo ayaana sidoo kale 18 bishan isugu yeeray golaha amniga qaran si uu Fahad Yaasiin ula wadaago xogta gabadhaasi. haddaba maxaa qorshaha ay dejiyeen hogaankii hore ay hadda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya si ay isaga riixaan dilkii Ikraan Tahliil Faarax? Fahad Yaasiin ayaa waxa uu Ikraan Tahliil ku eedeyn doonaa in ay ku lug lahayd qaraxii lagu khaarijiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Yariso Wallah u naxariistay, isla markaana ay aanu qabiil iyo sidoo kale ka argoosi u dileen shakhsiyaad ku hayb ah Allah u naxariistay deeqay Muqdisho kuwaas oo ka baxsaday kadib falkii khaarijinta Ikraan. Fahad Yaasiin ayaa sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiq doonaa in Ikraan ay wada shaqeyn iyo sidoo kale ay howlaha u fududeyn jirtay dagaalyahanada al-shabaab, isla markaana ay ahayd laba shaare si guud khatar ugu ah ilaamaha amniga. dilkii Ikraan Tahliil ayaa sidoo kale waxa uu dusha loo saari doonaa shakhsiyaad ku hayb ah Allah u naxariistay Injineer Yariso si culayska markaa looga dulqaado beesha Fahad Yaasiin uu ka soo jeedo ee reer Aw Xasan oo dhalinyaro ka soo jeeda marka laga afduubtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kadib markii lagu dhawaaqay geerida Ikraan Tahliil. ujeedada qodobadan ayaa sidoo kale waxa ay yihiin in la isku dhifto qabaa'ilada Soomaaliyeed ee gaaljecel iyo sidoo kale abgaal si loo maran habaabiyo kiiska isla markaana urgeynta sharciga looga badbaadiyo taliskii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya si aanan cadaalad markaa loogu helin Ikraan Tahliil. madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaana sidoo kale Fahad Yaasiin waxa isagu hadda uu noqday mid gabaad uu ka dhiganayo iyadoo sidoo kale taliyihii hore hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya lala xiriirinayo dilka Ikraan Tahliil Faarax. Fahad Yaasiin ayaana sidoo kale waxa uu doonayaa in beelaha markaa abgaal iyo sidoo kale beesha kale ee gaaljecel ay ka dhalatay Ikraan Tahliil oo iska horkeeno isla markaana labada qabaa'il ay iyagu markaa dagaalamaan. dhinaca kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa si gaar ah uga dhawaajiyay walaaca ku saabsan eexda doorashada ee ku wajahan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo saaxiibkiis Cabdullaahi Maxamed Nuur si muran leh loogu magacaabay wasiirka amniga gudaha. Nuur ayaana waxa uu ahaa wasiir dawlihii maaliyadda dawladii Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaamin jiray. la taliye sare oo Sheekh Shariif si gaar ah la taliyaashiisa kaga mid ah ayaana waxa uu sheegay in madaxweynihii hore ee Soomaaliya uu soo saari doono war ku saabsan xashada Maxamed Xuseen Rooble ee markaa uu sameeyay ee uu magacaabay wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya. khamiistii Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ku booriyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble inuu xoog saaro sidii Soomaaliya loogu diyaarin lahaa doorashooyinka dadban ee si waafaqsan waqtigii lagu heshiiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ku tilmaamay magacaabista Rooble mid xadgudub ku ah isla markaana waajibka xukuumadda uu sii hayo aysan ahayn mid waafaqsan. dhinaca kale cabsi xoogan ayaa soo food saartay dadka ku dhaqan magaalada Jowhar ee xarunta dawlad goboleedka Hirshabelle halkaas oo dhawaan qaraxyo dhowr ah ay ka dhaceen
saraakiisha laamaha amniga ayaa waxa ay sheegeen inay heleen xog sheegaysa in dagaalyahanada al-shabaab ay maleegayaan weeraro inay fuliyaan inta lagu guda jiro doorashada xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo maalinta berrita la filayo inay ka dhacdo magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaasi si looga hortago khatarta dagaalyahanada al-shabaab waxaa wadooyinka lagu daadiyay ciidamo dheeraad ah oo isugu jira AMISOM iyo sidoo kale kuwa kale ee dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Jowhar isla markaana lagu amray inay sugaan ammaanka magaalada Jowhar inta lagu guda jiro doorashada waxaa ku sugan magaaladaas oo 90 kiiloomitir dhanka waqooyi uga beegan magaalada Muqdisho musharaxiin badan oo isu diyaariyay doorashada 8 kursi ee maamulka Hirshabelle loo qoondeeyay magaalada Jowhar ee xarunta dawlad goboleedka Hirshabelle ayaana wali waxaa ka socota qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan 8 kursi ay ka imaanaysa dhanka maamulkaas laguna dooranayo magaalada Jowhar diiwaangelinta xubnaha musharaxiinta ayaa la soo gabangabayn doonaa sida uu shaaciyay guddiga doorashada ee heer dawlad goboleed ee maamulka Hirshabelle sidoo kale maalinta berrita ee Axadda ah taariikhduna ay ku beegan tahay 12 bisha September ayaa qorshuhu waxa uu yahay hadal jeedin ay sameyn doonaan xubnaha musharaxiinta ee isdiiwaan galiyay kadibna waxa la gudagelin doonaa qorshaha doorashada si loo soo xulo senatarada ka imaanaya deegaanada maamulka Hirshabelle waad ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato waxaan kaa codsanaynaa in YouTube-ka subscribe inoo saarto muuqaalkana like aad inoo saarto asxaabtaadana aad u share garayso si saaxiibo wanaagsan oo adiga kulmidaan u yeelan waana ku mahadsantahay daawashadaada